dhegaystayaal cabdi warsame baanji oo cabdigaahir ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin sidaasoo ay tahayna waan aqaan cid ay nolol isku soo gaareen lama aanshoorin lamana sheekaysane waxa i baray gabayadii uu tirin jiray inta iga soo gaadhay taasina layaab ma laha maxaa yeelay gabayaaga anshigiisa iyo alabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhaxlo gabayada iyo geeraarada uu maansayahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su'aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato maansayahanada soomaalida ee codwadka iyo dagaalyahanimada ku caanbaxay way badnaayeen lamana wada magac dhabi karee aan ka xuso samatar ilaawe aabbihiis cismaan laga jarco faarax afcad siciid qamax xuseen xasan cali dhuux aadan iyo tobannaan kale oo dadweynaha soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday cabdigaahir raggaas aan qaarkood soo sheegay ayuu ku tirsan yahay wuxuu ahaa tiro dhallinyaro ah oo u dhaga fudud markuu isla helaba nin duula oo dhaca geela malab loogu daadshay sida cali dhuux ayaa waxaa ka dhacdacsanayd in meesigaasi uu dadka ka dhaxeeyo oo cidda uu u xeraysan yahay qofkii subax ka moola duuga aan habeen aakhiro loo qabsan doonin nin hal adag oo wuxuu doono markiiba ku dhaqaaqa ayuu ahaa dabadeedna hiifka iyo haraanka dadka aan dan iyo daarad ka yeelan wuxuu ahaa nin aan kala jeclayn geela uu markaas weerarayo cidda iska leh weligiisna aan isweydiin ma sokeeyaa leh ma shisheeyaa leh ma culimaa leh ma agoon baa leh wuxuu ahaa nin aad isugu kalsoon oo rumaysnaa inuu yahay habeen dhalad geesi ah raganimo oo idilna cid kaleba waa ku hafadhiye ay isaga uun isugu ururtay taasna wuxuu marag uga dhigan jiray cilmiga xidigiska habeenkii uu calool galay oo afagaalladu dhaceen ururkuna uu soo baxay habeenkii uu dhashay oo dayaxu 14 ahaa isaga iyo dilirkuna ay hiirtii wada fadhiyeen habeenkii ay hooyadii foolanaysay aadkii libaax ee ay indhaha ku dhufatay intaas oo idili inanka habeenka uu dhasho ay isku toostaa wuxuu noqdaa erkayeer beer fariijo ah oo aan la loodin karin waa soomaalidii waayadaas siday la ahayd arrintaas xidkaha iyo dhalashadiisii ku saabsanna wuxuu ku sheegay tuduc ka mida gabay uu tiriyey mar isaga qudhiisu uu isku guubaabinayay inta col humo inuu geel soo qaado wuxuu yidhi afagaal dhac urur soo baxaan uur habreed galaye 14 baan dhashiyo dilir arooriyaade habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye ma asiibkay baa galay maxaan eel u dhigi waay sida raggii la ayniga ahaa gabayada cabdigaahir waxay u badan yihiin jacaylka geela iyo dagaalada helitaanka meesigaas ku laran taasna waxaa u daliila gabaygiisa saynle lagu magacaabo ee uu tiriyey beri reere culimo ah xididna uu la ahaa uu geel ka soo dhacay wadaad haddaba magaciisa xaaji maxamuud aw cilmi lagu sheegay oo carruurtiisa qaarkoodna abti u ahaa ayaa erga ahaan ugu yimid ha yeeshee kuma uu guulaysan in loo celiyo geelii laga soo qaaday dabadeedna wadaadkii iyo docogaysigiisii intuu dhagaha ka furaystay ayuu cabdi tiriyey gabayga sidaan soo sheegay saynla la baxay ee soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadyada libaaxa uu ku tilmaamayo isaguna uu isaga isku maakubayo wuxuu yidhi saylow libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo saryankii hadduu aarankuu sayri jiray waayo sanatayn hadduu sida wadaad sooman ka ahaado seeriga galduur iyo hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayid laga doono sababadiyo feeraha hadduu saabka ka higoodo 70 mayl haddii laga maqliyo sugun bannaankeeda ma sanqaro ee waa gaatamaa sixirka muudaaye isagoo saliilyoonaya oo micida soofeeyey saliibadaha xoolaha hadduu saacad ku agmeero saqda dhexe hadduu reera miro oystiiga kor u duusho sasar waa bannayn jiray halkuu saara jeenyaha
surka luqunta siibaa cunaha subhun gurigeeda afartii saxnaa iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma leh habeenkaa naftuu debinta saaraaye anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waayey dhallinyaro 8 kuna haddaan saanadda u qaybsho salaad hore haddaan gala qabiil soobsan jiray geela sadqa ma leh dharaartaa colkaan soorka mariyaaye dabadeed dhaca geela ayuu marmarsiiye u doonanayaa wuuba bannaysanayaa wuxuu ku murmayaa oo maxaa markaan anigu qaado loola yaabayaa culimmada uu sayidkuba ugu weyn yahay soo kuwa dhacda iyo dhalataba weeraraya oo inta xeryaha ka buuxsada haddana sekada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah wuxuu yidhi haddiise geel su-aashiis iyo sadar la eegaayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suubanaan jiraye 70 buu kitaabada yaqiin saayid weheshaaye sekaduu ka maray qaalmuhu helay saraayiye isagoo shabiibkii maka iyo sagal la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureeraayo waa kuwaa wadaadadu suntaday suuqa marayaaye waxba haysa saban awgayow sidigi waa aade dhul sawaxay sifaarka oo engegay saxarka oo duulay sarreenkiiyo burkuba wuu guraa lagu suxuurtaaye nin 9 jirkeedu u curtaa soor ma haybsado sodog laga xishoodo iyo abtiyo saydi iyo aabbo cadhalaysay seehiga bulkale saayiraad ma lahe saqiid gowrac baa lagu tabcay iyo siiga iyo boobe meeshiga sidii loo arkay buusaan cadka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin rag isma sheegeene maxaa aniga lay saarayaa sidigta dhool xaawis wuxuu sidaas gabayga u wadaba ugu dambaysta iska daa geel uu celiyee xaajigii ergeyga ahaa ayuu godab raagtay ku soo saaray wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geelal qolada xaajigu ay raaska gabyaaga ka qaaday welina sidii loogu naaftay aan laga soo kaban waa hanjabaad iyo goodi uu nin erga ahi ka argagaxo kuna samro markaas buu xaajiga kula talinaya inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo meedisyada haddaba uu ugu quus gooyey gabaygana uu ku soo gabagabeeyey ayaa waxay ahaayeen idinkuba suldaamaa dhacdeen iyo sheekhyo saahidaye aw muumin seedii la jaray lagu saboolowye safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa sabaca dayrtii waa kaa liqoo wada surgogay seehiguu dhaqay siduu saayiq deelka ugu dhigay raggii samalay geelaad ogayd saanyadaa tahaye siciid iyo nin maxamuud ogaa ima salaameene sonkor uga macaan reer tolkay iyo suuf la xoogsado sii soco wadaadow intaan sumuc ku naafaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo